السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرن جنال كمر كلا سود وواضح أدي هذا ومهد سنتهين وطنك موقال كان وحن ربا إننا ندي كل وذاقه نينكي عنصري عدان كاي جيك لينك أيا شلي قلنكي دنبه لغو حري مقالة سين بول هذا ما حيته هاي سببت اللو حري محوسي هاي مظاهرات كان وكوباقي مالنت بريها والسبتية وليه هاي أقلاش أيان وهايستا حرونتا قبل كإنان كوسمايو لكن مسؤولين تو قبل كنا أي ليهين إلا أي هذا وح أقلاشا لو مسينين ninkan fitnadii ayuu mar kale Minneapolis kula soo laabtay waxaan ognahay bishii hore bartamaheedii inuu mudaharaad isku dayay uu uga soo horjeedo muslimiinta isla markaana uu doonayay kitaabka Quraanka inuu ku gubo ciidamada ICE uu ku taageero in uu rabshad iyo qalalaaso uu ku dhamaaday naftiisana uu la baxsaday haddana mar kale ayuu dib ugu soo laabtay Minneapolis iyo St. Paul arrimahaasi ayaan idinla wadaagayaa bal ninkan arrintiisa la xiriirta iyo sidoo kalena nin isagu ku baaqay in ciidamada ICE hubka loo qaato oo la iska celiyo oo dawladdu intay gurigiisa xoog ku gashay ay soo xirtay magaalada Minneapolisna waan idinla wadaagayaa ninkaasi maxay yahay muuqaalada uu barihiisa bulshada soo geliyay iyo sidoo kalena ururka uu sheeganayo in isagu uu ka mid yahay balse marka hore soo dhawaada ninkii cunsuriga ah cadaanka ah Jack Lanka oo islaam nacaybka lagu yaqiinay iyo inuu gubo kitaabka Quraanka isagoo doofaar xitaa kitaabka Quraanka iyo doofaar meel isla gelinaya ayaa mar kale dib waxa ugu soo laabtay gobolka Minnesota ninkan waxaan ognahay bartamihii bishii hore 17 bishii hore in uu soo qaban qaabiyay mudaharaad uu uga soo horjeeday dadka muslimiinta ah Soomaalida degan gobolka Minnesota ciidamada ICE uu ku taageeray isla markaana uu doonayay kitaabka Quraanka inuu ku gubo waxa mudaharaadkiisu uu qorsheysnaa xarunta dawladda hoose ee Minneapolis inuu ka bilaabo ilaa xaafadda Soomaalidu ay ku badan tahay ee sida Riverside uu ku tago laakiin maba la isla gaarinba ninkan markii xarunta dawladda hoose mudaharaadka uu ka bilaabay uu socodkiisii bilaabay dad fara badan ayaa ku soo xoomay xitaa waa la daqray baraf inta la kuukuusay dhagax ahaana lagu daqray naftiisa ayuu la baxsaday dad ayaa farac dilah uga badbaadiyay dadkii mudaharaadka dhinaca kala sameeyo ICE ka soo horjeeday walow aysan Soomaali ahaynba dadkaasi oo dad cadaan ah iyo dad kale ay u badnaayeen ninkaasi hotel ayuu xoog ku galay oo maciin biday naftiisa ayuu la baxsaday waa kii markii dambe yiri lugahayga iyo gacmahayga ay isku dayeen xitaa inay kala siibaan oo nafteeda ayaa u baqay hadda xitaa waxaan arkayay inuu dacwad ka gudbinayo booliska Minneapolis uu leeyahay amnigayga ay sugu waayeen nafteeda ay qatar geliyeen 147 milyan oo dacwada ayuu xareeyay waan arki doonaa arrintaasina halka ay ku dambeysay haddaba ninkii marka dib ayuu u soo laabtay waxa uu bartiisa uu uu soo geliyay in uu dib ugu soo laabtay Minneapolis isla markaana ugu baaqay dadka taageerayaashiisa maalinta bari ah oo 7 bisha oo Sabti ah inay isugu soo baxaan xarunta gobolka ee St. Paul halkaasina mudaharaad uu ka sameyn doono oo ICE lagu taageerayo dadka muslimiinta iyo Soomaalidana haddana mar kale looga soo horjeedo waxana uu yiri kooxaha bidixda oo qaswadayaasha ah ICE ayaa xirxiri doonta ayuu xitaa soo raaciyay marka shalay gelinkii hore waxaa jirtay sawir gacmeed baraf laga sameeyay oo u qornaa Rescued ICE macnaha ICE dacwadaha lagu soo ogo kooxaha federaalis oo ciidamada hore uga tirsanaa jiray ay sameeyeen sida sawirkan aad ka aragtaan oo ay ku soo bandhigeen xarunta gobolka hortiisana la dhigay oo loo ogolaaday ayaa ninkan markii uu arkay uu aaday marka shalay abaara duhuradii ayuu tagay xarunta gobolka muuqaal ayuu iska duubay asagoo dhahayo Trump waan ku taageersanahay ICE waan taageersanahay wadankan waxa iska leh dadka Mareykanka ah ee Soomaalidu iska malahan markaas kadib ayuu burburin waxa uu u galayaa sawir gacmeedkii barafka laga sameeyay oo Rescued ICE u qornaa marka uu soo gabagabeeyay kadib ayaa waxa uu leeyahay America first America only kadibna dadka waxa uu u ballaminayaa mudaharaadkiisii qorsheysnaa maalinta bari ah oo Sabti ah oo 7 bisha waxa uu leeyahay 12 duhurnimo xarunta gobolka isuu keena laakiin wararka hadda soo baxayo waxa ay sheegayaan in ninkaasiba ogolaasho uusan haysan bartiisa X waxa uu ku sheegay in uu ogolaasho u haysto bal muuqaalka ila eega markii uu burburinayay sawir gacmeedkaasi Rescued ICE u qornaa ee xarunta gobolka uu ku burburiyay bal wax yar ila daawada President Trump, we support you. We support ICE. Our country was made for Americans, not for Somalis. Pro-ICE, baby! America first, America only! We'll see you here, February 7th, Saturday, 12 noon, outside the Minnesota State Capitol.
markii burburintaasi uu geystay kadib oo uu ka tagay goobtii uu ku burburiyay sawir gacmeedkaasi isla markiiba booliska ayaa qabtay ninkanna waa la xiray sawirkan waa sawirkii xabsiga markii la geeyay laga qaaday marka University Boulevard ayaa lagu qabtay Ramsey County ayaa lagu xiray walow hadda damaanad lagu soo daayay laakiin mudaharaadka biri u qorshaysan ninkan waa fidna wada waxa uu doonayaa in qalalaaso weyn uu sameeyo kadibna halkaasi dhibaato ay ka dhalato ogolaasho ayaan u haystaa ayuu yiri marka in mudaharaadkaasi biri uu ka sameeyo xarunta gobolka laakiin mas'uuliyiinta gobolka waxay leeyihiinba horta xarunta gobolka uu public ay u furan tahay laakiin qofku dad bas aroos ku qabsado dad baa dhacdooyin kale ku qabsada laakiin qofku waa in uu soo dalbadaa application 7 maalmood ka hor uu soo dirsadaa kadibna uu sheegaa dhacdada uu halkaasi ku qabanaya maxay tahay imise qof ayaana ka soo qayb galaysa marka ninkan waxa la leeyahay asagu sidoo sheeganayo waxa uu haystaa ogolaasho laakiin mas'uuliyiinta gobolka waxay leeyihiin maalinta bari oo sabtiya dad ayaaba aroos ku qabsanayay oo horay ballantaasi u qabsaday marka ma jirto wax ogolaasho ah oo la siiyay 7 bisha ninkan Jake Lanky la yiraahdo sidaas darteed qofka marka applicationka 7 maalmood ka hor uu soo dalbado waa inuu soo sheegaa dadka imaanaya intay la egyihiin iyo sidoo kalena security-ga muxuu ka damacsan yahay dhinaca traffic iyo amniga sugitaankiisa maxaa uga qorshaysan markuu qorshahaasi dhan uu soo bandhiga kadib ayaa ogolaashaha la siiya laakiin waxyaabaha loogu diidi karo qofka waxa kamid ah hadii dhacdadaasi uusan u haysan wax security-ga qaabku u dhacayo uusan soo bandhigin isla markaana traffic-ga xarunta gobolka iyo agagaarkeeda maraya hadii saameyn ay ku yeelanayso dhacdadaasi wayna ku yeelanaysaa ninkan waan ognahay waa nin mudaharaad rabshado wata raba inuu sameeyo dad kale oo ka soo horjeeda ayaa meesha imaanaya sidaas darteed waxay u muuqataa inuusan wax ogolaasho ah uusan u haysan sida mas'uuliyiinta gobolka ay hadda leeyihiin laakiin isagu waxa uu leeyahay taageerayaashiisa ugu baaqaya inay yimaadaan maalinta bariyaha 12 duhurnimo xarunta gobolka isla markaana halkaasi mudaharaadkiisa uu ku qaban doono marka ninkaasi fidna ayuu wada Soomaaliyeey waa kii markii hore ku fashilmay oo naftiisa faracidila kula baxsaday haddana mar kale ayuu dib u soo laabtay waxa uu damacsan yahay ma noogin marka bal ha laga digtoonaado ayaan idin leeyahay dhinaca kale nin waxa jira cadaana oo sheegtay in isagu ururka Antifa uu ka mid yahay ururka Antifa waa urur dhinaca bidixda oo Trump xitaa markasta oo sheego uu yiraahdo dhinaca bidixda ayaa maalgeliya marka muuqaal ayuu soo duubay oo bartiisa Facebook uu soo galiyay uu leeyahay ICE markan waa ay ka soo dareene hubka hal la qaato oo hal la iska celiyo sidaas darteed ayuu leeyahay aniga qorigayga waa ii diyaara adiga hanjabaad ayuu u jeedinayaa inuu dili doono ciidamada ICE ee ku sugan gobolka Minnesota markaas kadib gurigiisa ayaa loogu tagay ciidamo ayaa xoog ku galay hub wata isagiina waa la soo qabtay oo la soo xiray sida arkaysa xitaa furaanada uu xiran yahay I am Antifa ayaa ku qoran waxaan ahay Antifa ayaan ka tirsanahay muuqaalkana wuuba ku sheegayaaba marka waxa la leeyahay ninkan inkastoo hanjabaado uu jeediyay haddana xurriyatul qowlkiisa ayuu adeegsanayo dastuurka uu ogol yahay marka waa in dawladdu ay keentaa in qatar dhaba uu ku ahaa ciidamada laakiin hadda kulay waa la xiray gurigiisa ayaa laga soo qabtay ninkan Kyle Wagner ayaa la yiraahdaa waa 37 jir marka hanjabaadaasi ciidamada uu u jeediyay oo yiri hubka hal la qaato hal iska celiyo ayaana lagu haystaa aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo